suldaan maxamed daahir cilmi oo ka mid ah salaadiinta waaweyn ee Somaliland kana soo qayb qaatay nabadayntii beelaha Somaliland oo maanta telefishinka caalamiga SBS TV kula hadlayay guriga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa ayaa ka dhawaajiyay inuu gabi ahaanba ka tanaasulay xilkii suldaannimo isagoo sidoo kalena ka hadlay marxaladda ay haatan ku sugan yihiin salaadiinta Somaliland waxaana hadaladiisii ka mid ahaa anigoo maanta kamarada iyo TV-ga waxaan u hor joogsadeen u sheegayaa anigoo ah suldaan maxamed daahir cilmi oo salaadiinta reer Somaliland ka mid ah maadaama salaadiintii Somaliland ay farabadatay niman aan lagu heshiin iyo kuwa lagu heshiiyeyba ay jiraan qaarna boqorro sheegteen qaarna ugaasi sheegteen anigu si aan suldaan caadi ahay waxaan u sheegayaa oo reer Somaliland iyo reer Maroodi Jeexba u sheegaya anoo suldaan maxamed daahir cilmiya dhaqanka waa marjaca loo noqon doono salaadiintu ama ugaasiyadu laakiin hordhaca dadka si waxun u sheega ah ama dadka kala jiida ama dadka isku dira maadaama ay sidaasi dhacday aniguna ceebta wax ku leeyahay oo de suldaan marka la sheego aan suldaan maxamed daahir cilmi ahay waxaan u sheegayaa oo ummadda reer Somaliland u sheegayaa ama aan dhaqanka iyo salaadiintaba u sheegayaa qabaa'ilka waxa uu talin jiray caaqilka iyo taliyaha iyo abaanduulaha marjicii loo noqonaya hadduu noqday imika inuu isagu iclaamiyo dagaal ceebta aanoo suldaana salaadiinta soo gaadhay waanu adkaysan waay wax loo adkaystana maaha suldaan waa ka dadka isu jiida ka kala jiida maaha ka harkaa baas jiida maaha ka hadalka xun jiida maaha soo jeediya maaha geeska Afrika oo dhan buu u suldaan yahay markaan anigu imika halkan joogo in Maroodi Jeex ay suldaan reer Maroodi Jeex ka ogaadeen ka yimid iyo ka Looyacada ka yimid iyo ka Boosaaso ka yimid intaba suldaan baan ahay soo daadii la yiraahdo soo deynaa waan tagaya dhibaatada gaadho waan tagaya maadaama aan suldaan ahay laakiin ceebta soo gaadhay waxaan u sheegayaa reer Maroodi Jeex iyo reer Somaliland ba in suldaannimadii aan ka tagay oonan ceebta inta la eegay dagaal qaadashada ah ama qoriyo qaadashada ah ay deedaa wax soo gaaray salaadiintii iyo magacii dhaqanka taa ayaa kamarada u hor joogsaday iyo TV-ga waana iga dhab cidina iga dambeyn maysatayda cidina iga ma horeyn ugu dambeyntiina waxaan wax ka weydiinay farqiga u dhaxeeya siyaasadda iyo suldaannimada maadaama ay hadda salaadiintii ku dhex milan yihiin siyaasadda dalka waxaana uu yiri waxa u dhaxeeya farq weyn oo cirkiga dhulka ah siyaasad markay noqoto suldaanku ma galo marka ay noqoto xafiiltan dawladnimo ayay tagaa suldaanku wuxuu ka talin jiray waxa diinta bedelaya iyo waxa dhaqanka bedelaya ee la xiriira taa culaadna kama talin jirin xuduudka wadankana wuu ilaalin jiray wixii diinta bedelayana wuu saddexdaas suldaanku ka talin jiray ama ugaasku ka talin jiray laakiin culaadna kama talin jirin siyaasadna kama talin jirin hadal xunna kama talin jirin oo geedka loogu tagayay mabay tagi jirin siyaasiyiintu imika se waxa dhacday inuu inan suldaanka dhirbaaxa inan yar baa dhirbaaxaya ha dhirbaaxo salaadiintiina qaar baa ka fahamsan oo ku milmay siyaasaddii waxay ahayd oo uu sharafka ku leeyahay oo uu martabada ku leeyahay suldaanku haddaad kelmadda ay weydiisay waxa u dhaxeeya siyaasadda iyo suldaanka ama siyaasiyiinta iyo suldaanka farq weyn baa u dhaxeeya waa cirkiga dhulka suldaanku dhulku wuxuu ku xukumi jiray marjaca loo noqonayo laakiin dagaalka la tagayo ma ahayn iyo qoriyo qaadasho maya ma ahayn si kastaba ahaatee suldaan maxamed ayaa noqonaya suldaankii u horeeyay si iskiya uga tanaasula xilkii suldaannimo waa maxamed cabdi cabdilaahi maxamed andar telefishinka caalamiga ee SBS magaalada Hargeysa.